kooxdana waa kooxdii la odhan jiray socdaalka jimcaha. socodku waa barasho. 1991kii markii Boorama laga qaxay dhulka waxa igu dhaweyd dhar wanaajaan orodkii ku gaadhay. waxaan ku darsanay dalbarasho oo waxaan barnaqaanaa 20 kiiloomitir oo Boorama dhan walba ah ayaan wado walba iyo doox walba iyo meesha biyele iyo meesha dhufays la geli karaba waraqaanaa. maanta halkan waxa la yiraahdaa maanta taaganahay buurta meydalka galbeedka. laba buurood baa meydalka leh, midna waa ta fulfuulka waqooyi ka xigta iyo dinaqo, midina waa meydalka xadku maro oo dhar wanaajay imka halka iga muuqata. waa waayeelkii weeyaan ishadii horena aan idin sheegay odhan jiray meelaha adagun baa laga helaa. ninka gahayra igu horeeyay arkaysaan buuraha maalmihuna raacay halka hoos ku fadhi ayuu ku hari jiray. maantana waa ninka buurta halka ugu dheer fuulo weeyaan. marka caafimaad badanna waanu ka helay. dhalinyarada iyo waayeelka iyo cid kasta oo socon karaysa waxaan ku dhiirigelinayna inay socodka macaamilaan oo ay soo raacaan gruubka socdaalka jimcaha. bismillahir rahmaanir rahiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxa la yiraahdaa maanta taaganahay buurta meydalka galbeedka. laba buurood baa meydalka leh, midna waa ta fulfuulka waqooyi ka xigta iyo dinaqo, midina waa meydalka xadku maro oo dhar wanaajay imka halka iga muuqata. kooxdana waa kooxdii la odhan jiray socdaalka jimcaha. ragga hogaaminaya waad arkaysaanoo gahayr waa kii iga horreeyay hadalka. waa waayeelkii weeyaan ishadii horena aan idin sheegay odhan jiray meelaha adagun baa laga helaa. ninka gahayra igu horeeyay arkaysaan buuraha maalmihuna raacay halka hoos ku fadhi ayuu ku hari jiray. maantana waa ninka buurta halka ugu dheer fuulo weeyaan. socodku waa barasho. marka caafimaad badanna waanu ka helay. dhalinyarada iyo waayeelka iyo cid kasta oo socon karaysa waxaan ku dhiirigelinayna inay socodka macaamilaan oo ay soo raacaan gruubka socdaalka jimcaha. taasi waa ta kale waxa weeyaan waxaanu baranay aqoon dhulkaanu baran. 1991kii markii Boorama laga qaxay dhulka waxa igu dhaweyd dhar wanaajaan orodkii ku gaadhay. laakiin maanta laas dhiiglaba ma dhaafayo ilaa waaba agtayda meelihii biyaha lahaa ee aan ku gabanayay meeshaan galaan cidina yarkii waaba agtayda ilaa. waxaan ku darsanay dalbarasho oo waxaan barnaqaanaa 20 kiiloomitir oo Boorama dhan walba ah ayaan wado walba iyo doox walba iyo meesha biyele iyo meesha dhufays la geli karaba waraqaanaa. maanta marka waa la waxaan doonaynaa faa'iidada badan aan hayno inaad ka soo qayb gashaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.